waa ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaya dabaaldegga sanad guuradii 62 ee asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Telefishinka Universal ayaa si toos ah nagala socotaan waxaana idiin soo gudbinaynaa munaasabadda weyn ee loogu dabaaldegayo asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 1962 Abriil markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la aasaasay oo ay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 62. waxaan idiin soo tabinaynaa tabinta tooska ah ee ku saabsan munaasabadda lagu dabaaldegayo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya 12 Abriil 1960 oo ay ka soo wareegatay sanad guuradii 62aad. sanad guuradii 62aad ee asaaska ciidanka xoogga dalka ayaa halkan loogu sugan yahay xafladda lagu dabaaldegayo waxaana ka soo qayb gali doona oo ka qayb galaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka mid ah hay'adaha dawladda sida taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taliyaasha kala duwan ee hay'adaha ammaanka iyo dad marti sharaf ah oo lagu casuumay oo ay ku jiraan diblomaasiyiin safaaradaha shisheeye ee ku yaala ee Soomaaliya oo munaasabad Soomaaliya 1962 Abriil oo ay ku beegan tahay maanta sanad guuradii 62aad. waxaana halkan oo ah wasaaradda difaaca ama wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay ku taala degmada Daynile ee magaalada Muqdisho lagu soo bandhigaya munaasabadan ku saabsan sanad guurada 62aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ciidamada oo qayb u soconaya ayaa soo mari doona halkan gaadiid kala duwan iyo qalabka ay ku howlgalaan ciidanka xoogga dalka ayaa soo mari doona oo aad arki doontaan oo munaasabadda iyo fantaastiyada qaybka waxaana halkan khudbad ka jeedin doona madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage iyo xubno kale oo ka mid ah dadka marti sharafta ah. telefishinka Universal ayaad nagala socotaan waxaana si toos ah idinkugu soo baahinaynaa munaasabadda loogu dabaaldegayo 62 sano guuradii ka soo wareegatay asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ku beegan 12 Abriil 1960 markii la yagleelay ama la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa tahay waxaan idiin soo tabinaynaa tabinta tooska ah ee ku saabsan marka la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil 1960 marka waa tahay telefishinka Universal ayaa nagala socotaan waxaana idiin soo tabinaynaa munaasabadda loogu dabaaldegayo 62 sano guuradii ka soo wareegatay asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo
maanta ku beegan 12 abriil 1960 oo ciidanka la aasaasay ee ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka ugu cududa xoogga badan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, halkan oo ah wasaaradda difaaca ee dalka oo la xoreeyay sanadkii 2011 ayaa dib u dhis iyo qalabayn lagu sameeyay oo ay maanta ciidanka ku soo bandhigayaan fantastiyadooda ku saabsan markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay. waxaana munaasabadan khudbad ka jeedin doona madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xubno kale oo munaasabada sanad guurada 62 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii la aasaasay oo khudbado laga soo jeedin doona. waxaana looga hadli doonaa taariikhda faca weyn ee ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa salaan sharaf ay ka qaadan doonaan madaxweynaha ay siin doonaan salaan sharaf madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona halkan fantastiyada lagu soo bandhigayo ay soo mari doonaan ciidamo kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen ciidanka baanda muusig ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo heesaha loo qaado ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si muusiga ah kusoo bandhigayay islamarkaana ka shanqarinayay waxa ay astaamo iyo hordhac u ahaayeen munaasabadda loogu dabaaldegayo sanad guuradii 62 ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo maanta ku beegan markii la aasaasay 12 abriil 1960 waxaa halkan khudbado ka jeedin doona madax kala duwan oo ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaan ku sugannahay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho halkan oo lagu qabanayo munaasabadda 62 sano guureed بسم الله الرحمن الرحيم هاتنا waxaa inagu soo wajahan بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iminkana waxaa soo galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo marti sharafta qiimaha badan waxaa idinka codsanayaa inay nala soo dhaweysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dalka Soomaaliya 12 abriil 1960 oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay munaasabadda maanta daynile ee magaalada Muqdisho waxaana munaasabadani ay tahay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayo ciidanka xoogga dalka iminka madaxweynaha ayaa soo istaagay oo goobta soo gaaray
waa tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabada lagu dabaaldegayo xuska sanad guuradii 62 ee asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo gaaray ayaa ciidanka waxa ay siiyeen shalan sharaf waxaana hadda bilaabanaysa oo si toos ah loo gudagalaya munaasabada loogu dabaaldegayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii la aasaasay 1962 Abriil waxa soo mari doona bartan ciidanka qaybihiisa kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo fantastiyooyin kala duwan ku soo bandhigaya waxaana ciidanka ay sameyn doonaan in ay markaa bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh mudana madaxweynaha haddii ay ogolaato waxaan furfurayaa barnaamijkayga xafladda 12 Abriil waxaana ku soo dhawaataan xafladda sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta oo ah 12 Abriil waxay ku aasaasan tahay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa oo ilaaliya qatar waliba ay soo wajahda geyga Soomaaliya qodobada barnaamijkayga ama xafladayada ay ku saabsanaan doonto waxaa ka mid noqonaya aayadaha quraanka kariimka ee qolkii aabe gaarta kayaar oo ay soo bandhigi doonaan cutubada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa khudbad inoo jeedin doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها برلمانك فدرالك جمهورية الصومالية بلها وزيرة حلبانة برلمانك فدرالك الصومالية يدمان مرتشرفتك قيمها بدن waxaad ku soo dhawaataan xafladda sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii 62 ee ciidanka xoogga dalka aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markana barnaamijkayga maadaama aynu nahay dad muslimiin ah waxaynu ku furfuranaynaa aayadaha quraanka kariimka ee qolkii aabe waxaana dhammaan geesiyaasha u shahiiday qaranka dartiis aayadaha quraanka kariimka u aqrin doona laba xidigle Maxamed Abdi Xamiid وطاي مناسبة هيا ستة صهو باللابطي أو إبنكه وحال غفرفريا آيات كقرآن كريم كقول كيبه وحدنا لصعطان تلفزيون كيونيفرسال أو ستة صايد كوسو تبينيا مناسبة ده لو جود بالدقيقة أساس كعيدن كحوق دلك الصوماليات لبي طبعا كأبريل كون سجال بقول يلحدن كي أيا عيدن كالأساسي وحنا ما أنت يكون بيجنت هاي مالنتا لبي طبعا كأبريل لبكون لبعتن لبا ولحدن إلى بس أيا كسو ورجتي وح مناسبة كسوغن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم وطاي آيات القرآن الكريم كه أيا لغو فرفري مناسبة لغو دبل مركنا waxaan gudagalaynaa gaardaka ciyaar oo ay soo bandhigayaan cutubiyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dabaabaadka gaashaaman ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo halkan dowladtus iyo fantasi ku mari doona ayaanu daawan doonaa
waxaa la gaaray waqtigii ay ciidamada qaybaha duwan ee oo soo degayaan munaasabadda 60 sanad guuradii ee aasaaska ciidanka xoogga dalka. halkan waxaa diyaar ku ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gawaariyada gaashaaman. mudane madaxweyne waxaa kaa codsanaa inay ii ogolaato oo aan soo dhaqaajiyo. waa tahay sargaalkaasi waxa uu mudane madaxweynaha ka dalbaday in ay soo dhaqaaqaan cutubyada iyo gaadiidka iyo qalabka markaa loogu dabaaldegayo sanad guurada 62 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaan ku sugannahay wasaaradda difaaca ee Soomaaliya ama wasaaradda gaashaandhigga oo markaa lagu qabanayo munaasabadda 62 sanad guurada ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 12 Abriil 1960 ayaa maanta waxa ay yihiin ciidamo markii la aasaastay kadib dib loo unkay oo tababaro iyo carbis kala duwan la siiyay burburkii kadib, isla markaana maanta ay ku sugan yihiin xaruntooda wasaaradda gaashaandhigga oo ay markaa ku soo bandhigayaan. ciidanka xoogga dalka waxa ay ku sugan yihiin qaybo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah. maanta munaasabadan waa munaasabada ugu ballaaran ee Soomaaliya lagu qabanayo oo magaalada Muqdisho ka socota oo bandhigayo oo munaasabada loogu dabaaldegayo. halkan ku soo mari doonta ciidaha ay kala duwan oo ay sameeyaan dalka iyo ciidamada kale ee ciidanka xoogga dalka uu ka kooban ama qayb goobtan lagu ciidan u soo baxaan ciidan ditoonu horagayda midig bidix raac horayso. waa tahay waxaa bilaabatay munaasabadda dabaaldega ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soconaysa wasaaradda difaaca Soomaaliya oo haddaba ay si toos ah u bilaabatay dabaaldega munaasabadda ciidamada oo koox u sameeya ama qayb bilaabay socodkooda dhaqaaqa. waxaa soo gelaya ciidanka xirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo u difaacaya calankoodii wata ayay ku yihiin halkan. waxaa soo gelaya kuwii nafteeda ka jeclaa qarankani, waxaa soo gelaya kuwii awoowayaashooda iyo qarankooda dartiis si sharaf iyo ixtiraam leh ugu dadaalayay. waa kuwa doono ilaaliya qaranka ciidda iyo dalka Soomaaliyeed. waa ciidankii xirka oo halkan fantasi ku bandhigaya. waxaa la socda ciidanka badda oo iyaguna ilaaliya difaacaha iyo xeebaha. waa kuwa dhowra ilaaliya difaaca calanka ciidda gayiga
xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankii badda ayaa daba raacaya waa kuwa difaaca xeebaha xuduudaha badda inooga furan qatar welibana waa ay ka hortagaan dalka Soomaaliyeed saraakiishoodii tababarka ku jiray iyo saraakiil xigeenadii waa kuwan halkan fatasa ku soo bandhigaya waa kulliyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwii u waray qaranka naftooda waa kuwa dhiigga u daadiya calanka ciidda dalka iyo dadkaba dalka Soomaaliyeed cidyadoodii kala duwanaa ee saraakiisha loo soo saaray iyo saraakiil xigeenada waa diyaar asaantoodu waa diyaar waa difaaca calanka ciidda dalka iyo dadkaba mar walibana way u taagan yihiin difaaca ciidan waa kuwa dhowro ilaaliya xuduud waliba ay ku furan geyga Soomaaliya waa kuwa hogaamin doona markana waxaa soo galaya booliska militariga waa kuwa ka hortaga dhowra shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa booliska militariga markana waxaa soo galaya ciidankii dhulka kuwa waqti ku dagaalama buuraha haraha togaha cadowga ka weerara mar walibana uu gala waa kuwa u dhaartay qarankani waa ciidankii dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed uma baahna codkooda iyo lugtooda ayay ku caanamaalayaan waa kuwa lugta ku dagaalama kulligeeda buuraha haraha mar walibana cadowga ku weerara goobaha ay ku sugan yihiin kalena baxa hardamada iyo soo hogaaminayaan kana hortaga kumaandoosa xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa cadowga ka weerara jiha kasta isagoo aan filaynin waa kuwa weerara qatar waliba ee soo wajahda dalka Soomaaliya waa kuwa dhowra calanka ciidda dalka iyo dadkaba uma baahna in loo tumo durbaan lugtooda ayaa durbaan waa kumaandoos ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uma baahna durbaan in loo garaaco lugtooda ayaa durbaan waa kuwa dhowra ilaaliya calanka ciidda dalka iyo dadkaba waa kuwii naftooda ka jeclaa qarankani waxaa soo socda kuwii awoowayaashooda iyo dhulkooda hooyo u hubeeyay qalbiyadooda waa commandos waxaa soo socda kuwa shacabkooda dartiis si sharaf iyo ixtiraam leh ugu dadaalayay waxaa soo socda geesiyaasha Soomaaliyeed waxaa soo socda kuwa gala godadka harooyinka togaha
socodkooda ayaa ka garan kartaa uma baahna durbaan iyo sacab in loo tumo waa kumaandoosta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa aad aragtaan waana kuwa ka jawaaba qatar waliba oo soo bareerta gayiga ciida calanka iyo dadka Soomaaliyeedba waa kumaandoos waa kuwa haatan cadowga u diida hoyaad waa kuwa soo galaya waana sababta in ay hurayaan naftooda waa kumaandoos codkooda ayaaba ka garan kartaan waa ciidan muuqaal wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan leh waa niman adag oo ku kalsoon nafsadahooda waa kuwa u diida cadowga hoyaad iyo hardiba inuu ku hoyado waa kuwa dhowra ilaaliya calanka buluuga ah oo mar waliba babanaya waa kuwii taariikhda qori lahaa lagana qori lahaa waa kuwii qarniga magacooda lagu xusi lahaa waa kuwii waa wadkii cadowga mar waliba ugu gala godadka ay ku jiraan waa commandos ta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar waliba u diida cadowga in ay nastaan waa kuwa aad aragtaan ee halkan ku soo bandhigaya fantasiyaha dowlatuska waa maalintii aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadarabaadkii gaashaamna ee cadowga mar waliba ku jira godadkooda ciidanka xoogga dalka ayaa maraya halkan
ee u dambeeyay qaybaha isku soo noqod wanaagsan markana waxaan meediyaha ka codsanaynaa si protocol leh ay hor u yimaadaan protocolkana dhowraan si toos ah khudbadihii munaasabada loogu dabaaldegayay ee asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed كولابا كوكو كولابا isku soo noqod wanaagsan mar kale wali waxaanu bartanka kaga jirnaa xafladayada qiimaha badan ee sanad guurada 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markana waxa khudbad inoo jeedinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraya Guuto Odawaa Yuusuf Raage هو مبرر بس مش غنى واحد يرسل واحد يرسل بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك وسير كحجينك وسير الدقاشان دقا قدهان قولها وسير هذا هل كان فرديا
ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taliyaasha ciidamada ee halkan fadhiya kuwa soomaaliyeed iyo kuwa amisoomba safiirada beesha caalamka ee halkan nala fadhiya xildhibaanada labada gole jamhuuriyadda federaalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga taliyaashii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ayagana runtii maanta halkan nala fadhiya taliyaha kulliyadda turkisom dhammaan saraakiisha abaanduulayaashii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaguna halkan nala fadhiya dhammaan sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ee meediyaha oo runtii ayagana halkan nala fadhiya guud ahaan marti sharafta ee qiimaha badan ee xafladan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan hadal laguma soo koobi karo runtii hilmaa hadal kuma jiro taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed walaalkay janaraal cabbaas amiin cali oo runtii aad iyo aad iigu qiimo weyn mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib mudana madaxweyne mudayaal marwooyin waxaa sharaf weyn inoo ah maantay inaad nagala soo qayb gashaan sanad guuradii 62 ee ka soo wareegatay aasaaskii maha iyo miisaanka ay ugu fadhiso ognahayna labadii sano aan soo dhaafnay in aan la xusin sababo la xiriira cudurka faafaha daran ee coronavirus awgiis maanta ayay inoo suurta gashay waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala oo ay tahay 12 abriil 2022 in ay noo suurta gasho inaan isugu nimaado sanad guurada 62 ee ka soo wareegata aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qiimaha badan iyo ka soo qayb galkiina oo runtii aan dhihi karno waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay muxuu ahaa ii sheege in aan horu dhaqaajino howlihii adkaaya aan ku jirnay mudana madaxweyne intaa markaa intaa uga gudbo haddii aan ku laabto dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu soo maray marxalada kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii meel ayuu sii gaaray waxaan rajaynayaa insha Allah taala iyadana inaan ka sii wadi doono sarana u sii qaadi doono waxaan xooga saarnay si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaal fahmi kara waajibka iyo mas'uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsami leh u guda kara dhammaan hawlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka noocyadiisa kala duwan ee lagu tayeynayo heerarka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale ayadana waxaan xooga saarnay qaadashada aqoon-yahano ka soo qalin jabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aan u kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee wadamada aan saaxiibadan nahay kuwaas oo runtii kuwa badan oo kamid ah oo wadankooda dib ugu soo laabtay waxbarashadooda si guul ah ku soo dhameystay ay wax weyn ka bedeleen howlaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo wali ku maqana aan aaminsanahay inay si guul ah ku soo dhameysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale mudan madaxweyne waxaan ayadana runtii muddooyinka ugu dambeeyay الفتح انستيتيوت معهد الفتح برشاد القرآن كي علوم تشرعية ومعهد أونلاين أهلونا أساسي سيء ضدك وبر القرآن كي علوم تشرعية ورالد ميل ولي تشوغان با وحنشي على إنا نغباقو معهد الفتح لو معهد أونلاين أو قرآن كي علوم تيسا كسابسا لنقطة تجويد كيسا لنقطة قراءة كيسا تفسير القرآن غيره وحاكوغو ديارة معهد كمعلمين إيو معلمات قبرد له إجازوين نوها السوح بريدا والذاريات ذروا waxaad ka baran kartaan macahadka sixidda carabka xifdiga quraanka kariimka subaca iyo qiraa'aadka wuxuu sidoo kale macahadka bixiyaa culuumta sharciga sida barashada tafsiirka luqadda carabiga iyo cilmiga tajwiidka
ardayga dhammaysta duruusta machadka waxa uu helaya xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ah waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadegay ilaa heer maamul taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay heedo hawl aad iyo aad weyn ay heedo wada dheer oo runtii safarkeeda uu dib badnay laakiin ku soo dhamaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha Allah taala aan dhamaystiri doon hadii Ilaahay yiraahdo waxaad ogtiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantay si systematic ah ayuu ku qaataa dhammaan xuquuqaadkiisa waxaan uga mahad celinayaa dhammaan howlahaas ayaga ah in allaale inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah gaar ahaan waxaan uga mahad celinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyay muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha Weltef Home Furniture wuxuu idin hayaa alaab casri ah haddii aad doonayso kuraasida fadhiga qolalka jiifka aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo dhammaan shaqaalihii runtii arrintaas ka shaqaynayay oo aan aaminsanahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaro arrimaha reformka mudane madaxweyne sidaas oo kale inta kaliya kuma eko waxaan ognahay inaan la dagaalamayno urur argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin dhiig miirato daadinaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo qiyaanada ay ku sameynayaan ummadeena iyo qarankeena sidaas awgeed maadaama ay been ku sheegayaan arrimaha diinta islaamka mar walbana ay adeegsanayaan waxaan xoogga saarnaa arrimaha wacyigelinta oo aan ugu talagalnay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba inta aan gaarsiin karno ayadana runtii meel fiican ayaan ka soo gaarnay oo qalabka sida iyo dhammaan meediyaha kale runtii oo arrintaas ayagana siyaabo gaargaara ee noogala shaqay jiro aan leenahay aad iyo aad u baahan tihiin welina aan u baahanahay runtii gacantooda in ay gudbiyaan si looga qabto nimanka dhiig miiratada qarankeena iyo ummadeena mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxqabadka kor ku xusan la xiriira muxuu ahaa ii sheegay xuska iyo xiriirka guulaha uu gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kale ayadana waxa barbar socday oo aad ogtihiinba la dagaalanka ururada argagixisada oo runtii in muddo aan kula jirnay argagixisada dagaal laguna qaaday hawlgallo aad u xooganaa oo meelo badan looga xureeyay meelo badan oo xarumo badan ay kula hayeen lagu burburiyay aan rijaynayna insha Allah taala inaan xoojino siina dardar gelino si aanu dabar goyno oo uga saarno ummadeena si hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed aabayaasha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadeenuba ay ugu noolaadaan sharaf barwaaqo iyo nabad waxaan rabaa runtii ayagana inaan halkan ka xuso saaxiibada beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno xaqiiqatanka ayagana waxay ka geysteen muxuu ahaa ii sheegay dib u dhiska hay'adaha amniga gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacan aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dareemi karno kaalinta ay ku lahaayeen howlihi aan soo marnay laakiin taana aysan ahayn oo aanay ka turjumayn dhamaystirka waxyaabaha u baahnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ognahay wadanka Turkiga saaxiibadeena halkan maanta nala fadhiya oo runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah saraakiil xigeyn leh alif leh iyo dab leh siyaabo kala duwan tababaro u soo siiyay haddana qalabeeyay agabkii ciidanku u baahnaa sidaas oo kale ayagana waxaad la socotaan saaxiibada Mareykanka oo ayagana runtii sidaas oo kale ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ayagana runtii kaalin aad iyo aad muhiim ka geystay tababarkiisa qalabeyntiisa iyo gacan goyntiisaba intaasba nagala qayb qaata runtii EUda oo runtii ayagana aan leenahay aad iyo aad u maasantihiin ayagana runtii hawlo badan nagala qayb qaatay waqti dhow in kasto ay muxuu ahaa ii sheegay ay bilaabeen hawlahaas laakiin haddana hawlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan waxay qalabaynteedii completely ay dhameeyeen afar urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afar kalena hadda ay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay kamid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagana way wadaan sidaas oo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inoo mahad celiyo UK oo sidaas oo kale ayagana runtii ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaas oo kale hay'ado kale ayagana oo si toos iyo sida noogala qayb qaatay dib u dhiska ciidanka sidii UNSOM UNSOS UNMAS iyo guud ahaan hay'adaha kale saaxiibadeena waxaan rabaa ayagana inaan halkaan aan uga mahad celiyo
saaxiibadeena amisom oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiiggooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdho ayaa halkan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka Soomaaliya raadinayana in qaran Soomaaliyeed mar kale uu cagihiisa ku istaago aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin runtii wali waxaan hor yaalla saaxiibadeena inaan iska kaashano hawl aad iyo aad weyn oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay amisom hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyay admis oo ay transition noqotay una baahannahay runtii saaxiibadeena qaaliga si ay u xaqiijiyaan wixii ay halkan u yimideen taariikhdana ay u gasho wixii ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow waqtiga u haray in ay runtii xoogana la saaraan dabargoynta nimanka arxanlaawayaasha ah ee dhiigga ummadeena miiranaya waxaan rabaa runtii inaan ayagana halkan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeyn alifley iyo dabley intii ku geeriyootay inta ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ee arxanlaawayaasha ee dhiig miiratada ah inta ay ka dulqaadayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay ha idin naxariisto insha Allah taala waxaan xaqiijin doonaa hadafkii aad u dhimateen ayaan xaqiijin doonaa kana mir dhali doonaa ilaahay hadduu ogolaado waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabada ciida ee 12 Abriil sanad guuradii 62 ka soo wareegtay asaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan sareeyaasha saraakiisha farxad wanaagsan runtii waxaan rajaynayaa munaasabadeeda kale in ay aan ku gaari doono guul iyo horumar annagoo maanta meesha aan taaganahay runtii tilaabo aad wanaagsan ka tilaabsanay oo dhinac walba ah waxaan rabaa waa dareemi kartaan runtii qabanqaabada iyo inta aan ku jirnay munaasabadan diyaar garowgeera gaar ahaan maalmihii la soo dhaafay maadaama ay munaasabadan meesha ay ka dhacaysa ay tahay caasimadii bulsho badan ay ku nool yihiin anigoo u marsiinaya gobernatooraha gobolka haddii xoogay cariiri badan iyo wadooyin badan oo xirxiran ay nagala kulmeen bulshadu inay noo dulqaataan maanta ay halkaan noogu soo gabagabowday intaad aragteenna dabcan waxay ahaday amniga iyo tacadirkiisa aad iyo aad ayay ayaguna runtii u mahadsan yihiin sida dulqaadka leh ee ay muxuu ahay ii sheegeen noogu samreen aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa runtii oo aad iyo aad noogu weyn taageero aan kala gool lahayn oo aan la ilaabi karin oo marnaba aan qalbigeena ka go'ayn ayagana bixiyay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la garab istaagay dawladda Jaynaha oo dhinac walba isugu jirta runtii oo aaminsanahay inay xaqiiqatanka ay qayb aad iyo aad u weyn ka qaateen dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karno waxyaabaha hadda halkan maray aad arkayseen qaybaha ugu muhiimsan qaybo kamida in ay bixiyeen aad iyo aad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markana waxaa khudbadiisa qiimaha badan ee ku saabsan munaasabada 12 Abriil oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantana ay u dabaaldegayaan inuu jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
فرست بسم الله الرحمن الرحيم دوميها قولها شعبك تليها عيدك حوجة تليها عيدك بوليسك تليها حيجينك عيدك حوجة إيو تليها حيجينك بوليسك تليها عيدك عركة تليها عيدك دولك إيو تليها عيدك بدر gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaasha hogaamada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada taliyaashii hore ee ciidanka xooga taliyaha ciidanka niisa ra'iisul wasaarihii hore golaha wasiirada inta nagala joogta xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh shacabweynaha nagala soo qayb galay munaasabadan qiimaha badan bahda saxaafadda kooxda horseed ee Bambeyda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allah mahad iska leh oo maanta noo suurtageliyay qabsoomidda munaasabadan aan u dabaaldegayno xuska sanadguuradii 62 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliye odawaa runtii iyo saraakiisha sare oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambaliyo waxaan ilaahay ka baryanaa sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar taliyadu waa uu ka hadlay taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhismihiisa iyo marxaladii soo maray anigu se wax yar ayaan rabaa inaan ka taabto taariikhda aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd 12 April 1960 uu hogaaminayay aasaase uu ahaa Allah u naxariistee General Daawud Cabdulle Xirsi oo dhidibada u dhigay aasaaska u dhigay ciidanka xooga Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah runtii gaaray meel aad iyo aad u sareysa oo laga ixtiraamo caalamka guud ahaan iyo Afrika gaar ahaan wuxuu ku dhisay ciidankaasi oo cutubiyadii ugu horeeyay ay ahaayeen 2 urur macnaheedu waxay ahayd 8 hormood ayuu ku bilaabay oo aanan khibrad dheer u lahayn ciidan difaac oo badankoodii ka yimid booliis tababar dheeraad aan haysan war college aan ka soo bixin waxa intaas dheer qalab maysan haysan dhaqaalana iska daa laakiin wax intaas ka wanaagsan oo ka sareeya oo ka muhiimsan ay haysteen yuu haystay oo ahayd caqiido ama mabda
ama core value wax la yiraahdo principle oo la yiraahdo wadaniyad marka xamaasadda wadaniyadu ay sareyso qofku waa dhameystiran yahay waxa uu harsan inuu dhaqaaqo oo kaliya markaasna dhismihiisa ee ahayd waqtigaasan sheegay 2 bilood iyo 3 bilood kadib waxaa noo curtay dowladdii ugu horeysay oo dowladnimadii kala soo wareegtay isticmaarkii ingiriiskii iyo talyaaniga oo iyadana aasaas u ah ay u ahayd wadaniyadda aasaaskaas wadaniyadana waxay ka dhaxleen 17 sano oo gobonnimadoon ahaa oo ururkii SYL ay ummadda Soomaaliyeed ay bareen wax la yiraahdo wadaniyadda ay bareen in qabiil iyo qabyaalada laga tago energygaas ama xamaasadaas iyo noogu dhismatay dawladdii ciidankii noogu dhismay waxay keentay marka in la samaysto mission wax la yiraahdo visionkii waa wadaniyadii oo ah in la ilaashado qarannimada madax banaanida ummadeed in la ilaashado waxaa lagu ilaashan karaa marka oo mabaadi'daas ka mid ahaa midnimo mar laga tago qabiil ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado inay yeelatay qarankaasna ummadoo dhan ay ka dhaxayso waa laga soo guuray qabiilkii iyo qoqobkii waxaa loo guuray midnimo tan saddexaad oo siinaysa shacabka Soomaaliyeed kalsooni bacdama amaanadoodii iyo hantidoodii loo ilaalinayo oo cadaalad loogu ilaalinayo aan ummadda loogu kala eexanaynin wax alla wixii yar ee la isu gaarsiinayo in wax lagu qabto sida hadda aad arkaysaan General Odowa iyo ciidamadiisa ay dib u soo nooleeyeen ama u dhiseen xaruntii wasaaradda gaashaandhigga aasaaskaas yahayd wixii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadday tahay ciidan dhul hadday tahay ciidan bad iyo hadday tahay ciidanka cirka sidaad ogtihiin saddexdaas qaybood waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sareysa caalamka iyo Afrikaba oo ay ahaayeen ciidan xoog leh oo ka tilmaaman oo la xurmeeyo oo qayb ka noqday xornimadoonkii Afrika ee lagu xoreeyay ee gumaysiga lagu xoreeyay taas macnaheedu waxay tahay in haddii mabaadi aysan jirin waxa ugu horeeya qofka uu baahan yahay haddii ummad in la hogaamiyo loo baahan yahay inay tahay mabaadi dawlad markaan ka hadlayna qaranna waxa weeye waa wadaniyadda weeye taas weeye tan shacabka qabkooda iyo dareenkooda kor u qaadi kara siin kara xushmad iyo karaamo siin kara markii maamulkooda ama hogaankooda uu leeyahay hadaf wadaniyad ama patriotism uu leeyahay qaranka in la ilaaliyo siyaasadda hadii lagu ilaalinayo iyo hadii la difaacayo midnimada ummadda in la adkeenayo ama midnimada ciidanka la adkeenayo oo ciidanka loo kala saaraynin heeb iyo maamul wanaag dawlad wanaag oo la dagaalamayo musuqmaasuqa oo cadaaladda loo hormarinayo taas waxay u dhashay marka in ciidankii tirada yaraa uu markii dambe gaaray intaysan dawladda gudayn 120,000 oo marxalado badan iyo dagaalo badan soo maray markii ciidanka daryeelkoodii iyo xuquuqdoodii loo dhameystiro oo mushaharaadkoodii iyo daryeelkoodii caafimaad meel loo saaro markii tababarkii u baahan yihiin kor loo qaado tayadooda markii ay loo hibeeyo la siiyo qalabkoodii ay u baahnaayeen oo nooc walba sidaad ogtihiin ciidamada cirka ee Soomaaliyeed waxay ka galeen kaalin aad iyo aad u sareysa ilaa waxay gaareen inay gaaraan 3,000 staafka u shaqeeya hadday yihiin pilots wadayaal diyaaradaha hadday yihiin makaaniga hadday yihiin kuwa raadarka ka shaqeeya
iyo hadday yihiin kuwa maamulka iyo logistics-ka waddan afrikaan ah oo ciidankiisa 3 kun gaaraya cirka waa farabtiris ciidanka dhulka waxaa u dhammaystirnaa iyaguna qalabkoodii oo hadday noqoto dabaabadihii madaafiicdii goobta iyo qalab kasta oo ay u baahnaayeen si ay u difaacaan xuduudaha dalka uu leeyahay hadday tahay bad hadday tahay cir iyo hadday tahay dhulba dhismahaas ciidanka oo ummadda Soomaaliyeed siiyay magac wanaagsan adduunka ku siiyay iyo sharaf asaaskiisu wuxuu ahaa Allah u naxariistay General Daawud Abdullah Hirsi iyo mabaadiidii wadaniyada ahayd 30 sano kadib markii aan mabaadiidii ka leexanay oo aan u gudubnay wax laga soo tagay oo SYL ay ka adkaatay oo leeyahay qabiil ama wuxuu gumaysigu isticmaal jiray qayb iyo xukun oo cid walba ama qof walba uu aaday meeshii heebtiisa ay joogtay oo meel walba Soomaaliya ahna isbaaro la dhigtay oo cid walba meesheeda xiratay waxa meeshaas runtii ka dhacay qabjab iyo qaranjab meesha ugu hooseysa oo haddana aan ugu hooseynay Afrika inteeda kale iyo adduunkaba oo aan noqonay wax lagu qoslo oo la yaabo maxaa yeelay mabaadiidii fiicneed ee wadaniyada ahayd iyo xamaasadeedii waa ka tagnay waxaan aadnay wax aanan qaranka compatible u ahayn oo aan qaran dhisayn oo qabiila oo ah macnihiisu in wax lagu dumiyo ama markuusan qaran jirin maxaa yeelay awooyaashin yaa ku noolaa oo ku dhaqmay kumaan kun sano xeer iyo nidaam iyo lahaayeen laakiin xeerkaas iyo nidaamkaas xeer adduunka casriga la jaan qaadi kara maaha haddaan qaran noqonnay qabiil dowladaha shisheeye kuma aadi karo mana face garayn karo laakiin waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale annagoo midaysan oo dowlad adag ah oo mabaadiidaas aan sheegay ku dhisan soddonkii sano ugu dambeeyay ma iskaga sheekeen mayno wixiina soo maray waa wax u baahan bilo iyo sanado in laga sheekeeyo wixii dhacay insha Allah markay xaaladdu degtana dee waa laga sheekeyn doonaa waxay noo noqon doontaa taariikh aan wax ka baranno foolxumadii iyo dhibkii dhacay uu qabiilka noo geystay haddaba waxaa noo soo haray oo hadda hor yaalla waxa la yiraahdo political instability waxa la yiraahdo oo qayb ka ah wixii ka soo haray qabiilka iyo qabyaaladii iyo qaybintii iyo argagaxiso oo adduunka maxaan ku raahdaa nooga yimid oo aysan ahayn wax Soomaaliya ku abuurmay oo aan isla naqaano oo ay qayb ka tahay kooxda la yiraahdo Al-Qaacida oo ujeedkeedu yahay in Soomaaliya aysan degin in dawlad adag aysan u dhismin in shacabkeedu aysan horumar gaarin adduunkana aysan waxba la qabsan macnaheedu waxa weeye labadaas cudur waxay nagu soo galeen political instability ama xasilooni la'aan siyaasadeed iyo qoladan nabadiidka ah waxay nagu soo galeen haddaan midaysan nahay haddaan wadaniyiin nahay hadday daacad naga tahay inaan dalkeena difaacano oo aan jeclaano namaysan imaadeen meelo kale aadi lahaayeen waxay noogu yimaadeen waxay arkeen inaan haysano mabaadii khaldan oo qabiil la yiraahdo oo ummadda kala qaybiya waxay u arkeen inay ku dhex noolaan karaan marka oo ay ka dhex shaqaysan karaan oo ay horumar dalkan ugu diidi karaan fursadaasna runtii annagaa siinay maxaa yeelay waxaan diidnay inaan patriotic noqonno inaan wadaniyiin noqonno ayaan diidnay haddaba markii lay doortay waxaan ku imid nidaam la yiraahdo isbedel doon ayaan ku imid nidaamka isbedel doonka ah ma ahayn inaan shakhsi bedelo ama qof bedelo isbedel doonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsano wixii aabayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyay ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taas oo ah inaan dib ugu noqdo
ama aan kala doorto wixii soddonkii sana na dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasaddeena qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadi'da ah wadaniyadda patriotism isbeddelkaygu ma ahayn shakhsi beddel laakiin wuxuu ahaa nidaam beddel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno wadaniyadda oo si dhab ah oo si daacada ay naga tahay oo aan dib ugu noqonno mabaadi'daas ama xamaasadaas wadaniyadeed ee dadkii naga horreeyey ay noo aasaaseen oo foundation ay nooga dhigeen oo ah inaan sovereignty-gan ilaashano oo aan ku ilaashano si siyaasadeed iyo si ciidanba labadaba haddii nalagu soo duulo haddii si siyaasadeed naloo weerarana aan si siyaasadeed aan ugu wajahno waa kow sidaad og tihiin marxaladahan soo marnay 5 sano haddii ugu dambaysay waxaan ka bilaabay waxyaabihii ugu darnaa oo na haystay waxay ahaayeen fargelin shisheeye bacdama aan kala qaybsanayn oo dadkeenu ay qabiil u qaybsanaayeen oo qaarkeen ay yiraahdeen waa go'nay intii kalena ay kala irdhoobeen dowladaha danaha kale guracan Soomaaliya ma joojinayaan markaas inay ka faa'iideystaan xaaladaas oo ah inay ku fargeliyaan xaaladaas adigu aad liidato inay ku fargeliyaan in aan kulli wada maro noqono fargelinta ay naga joojiyaan oo aynan mar dambe u dulqaadan doonin inaba ha yaratee wax yaroo fargelina saad ogtihiin waxaan ka bilaabay Kenya Ethiopia Djibouti inta dariskana la oo kulligoodba xaqiiqatan daris aan nahay loona baahan yahay inaan wada noolaano oo daris wanaag ku wada noolaano iyo iskaashi iyo wax wada qabsi wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo la ixtiraamo oo si siman loo wada shaqaysto lisuna caawiyo waxaad ogtihiin in Soomaalidu markay u socdaan Kenya meel wajeer liyaado in lagu hayn jiray 6 saacadood safarka Muqdisho ilaa Kenya ay u socon jireen 7 saacadood markay ugu yar tahay kabaha laga siibay wajeer haddana kabaha looga siibo dadka meesha la yiraahdo Nairobi arintaas complain yaan ka jeediyay bacdama iyaga muwaadiniintooda ama diyaaradooduba ay toos u yimaadaan saas darteedna inay ila joojiyo socdaalkaas qaldan oo la mid ka ah qofka halka ka taga oo Yurub aad oo kale waxa ku xigay soo celinta hawada Soomaaliyeed oo laga controlay oo laga maamulayay magaalada Nairobi muddo 26 sano oo sanad ay u dhiibayeen bacdama problemkana haysto ay tahay political instability ayna uga faa'iideysan jireen waxaan ku qasabnay inay dalka keenaan oo annaga aan maamulno xaqiiqatan maanta waxaan haysanaa qalab ka fiican dowladaha dariska ah ay haystaan waxa intaas dheer dowladaha dariska ah markay xuduudahooda ay damcaan inay kala dhistaan oo ay silig ama darbi ku wareejiyaan waxa la saaraa guddi border commission yiraahdo dowladda Kenya waxay bilowday inay samayso xuduud shub ah ama dhagax ah annagoo aan wada tashan oo ka heshiinin arintaasna waxa weeye wax sovereignty-geena taabanaya weeye maxaa yeelay ma naqaano xariiqda la dhigayo soohdinta la dhigayo ma naqaano oo laga dhisaayo waxa intaas ku xigtay waad ogtihiin oo muddo dheer qaadatay iyadana qayb ka ah sovereignty-ga Soomaaliyeed oo u baahan in siyaasad lagu xalliyo baahnayd in siyaasad lagu xalliyo waxay ahayd murankii badda annagu aan gelinay oo aan la galnay Kenya oo Kenya aamintay inaan badda siinay aan u sii deynay oo aan u sii deynay Kenya oo meel walba ku qortay
memorandum of understanding loo saxiixay kaasoo runtii culays badan aniga khaasatan igu ahayd oo pressure aanan sahal ahayn ahaa oo hadday tahay mid siyaasadeed oo dee lagu handadayo oo lagu sheegayo inaad tabar yar tahay oo leverage badan lagaa leeyahay oo lagu dhibaateyn karo si aan dib uga noqdo badda mid dhaqaale iyada naftigeeda iyo mid siyaasadeed basaan sheegay oo ah xitaa in meelo la soo marsiiyey in election xitaa lagala shaqeynayo si aan u soo noqdo in return aan ku bedelayo baddaas inaan dib u soo celiyo handadaad waa idin sheegay oo xitaa la gaarsiiyey in toos fargelin qaawan Kenya nagu samayso hadday tahay cirka iyo hadday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay ilaa markii dambe ay nagu abaabushay jabhad ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadana aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed intaas oo idin waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qarannimada madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed waxa kaloo intaas dheer haddii dawlado aad saaxiibo wada tihiin ay murmaan ama ay dagaalaan bacdama aan jilicsannahay bacdama aan muddo kala qaybsanayn bacdama leverage badan uu jiro nalaga soo geli karo naloo ogoleen inaan qaadano dhexdhexaad taasi waa diidnay waana qayb ka mid ah wadaniyada iyada naftigeeda maxaa yeelay haddii dan shakhsi ay tahay haddee waxa ugu fiican oo qofka shakhsiga uga faa'iidaysan karo laakiin qofka mas'uulka ah hadduu mabda'aas uu leeyahay patriotismka in uu fiiriyo danta dalkiisa iyo mustaqbalka dalka maxaa yeelay markii laba dal isqabtaan ay ku khasbaan mid inaan raacdo oo aysan khasab inaan raacdo oo waliba xiriirka u gooyso oo aad samayso waxa ka dhaxlay dhibkaas dadka ka dambeeya ma aha wax shakhsi ku xiran ma aha waa laga yaabaa shakhsiga hadduu u arko inuu ka faa'iideysan karo uu ka faa'iideysto laakiin waa dhib dhaxal reeb ah oo dadka ka dambeeya u yaala maxaa yeelay waxaad gashay dagaal uusan dadkaaga lahayn yaad gashay waxaa idiin soo haray taasi waxay tan siyaasadda tan difaac intii oo kale aan sameeyey wax cusub maaha wax cusub oo aan alifnay oo aan invention ku sameynay maaha intii hore oo dadkii hore sameeyeen baan buugta ka jajafay oo aan dib u soo nooleynay oo ahayd in ciidanka madaxa laga dhiso maskaxda laga dhiso waxaa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa wadaniyad in lagu abuuro maxaa yeelay waa in ciidankani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano wuu yaqaanaa waa dhaqankiisa qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay wadaniyad iyo wadankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaan inay tahay in la siiyo xuquuqdiisa loo dhamaystiro xuquuqdiisa si xuquuqdiisa loogu dhamaystirana waa in la diiwaan geliyo saad ogtihiin sanad iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay usbuucyo aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan maxaa yeelay askartii aan mushaaraadka siinayna ma gaarayso tayadii ciidankii ma fiicna isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dablaydiina ma fiicna waxaan gartay marka inaan meeshaan usoo dego oo aan baaro cilada meesha ka jirto cilada waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file oo ciidanka leeyahay in ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoon inta isla joogto kaliya istaqaada meeshaas way meesha uu ka bilowday in aan sameeyno biometric iyo diiwaan gelin meeshaan ka bilaabno meeshaas way waad ogtihiin markaan bilawnayna dhibka iyo wixii naga qabsaday iyo ciidankii
runtii mutiniga sameeyey oo gadooday oo qaarkood garan lahaayeen oo biometricii aysan gaarin iyo fingerprintingkii qaarna ay diidanayeen systemkan cusub marka ciidanka xuquuqdiisa la siiyo oo kan la siinayo la yaqaano diiwaan ku jiro waxa weeye ciidanka midnimadiisii yaa ku xigta marka tababarka la siinayo ciidanku inuu yahay ciidan Soomaali oo dhan ka kooban oo aanan ahayn hal degaan maxaa yeelay waxa la difaacayo waa qaran siday ahaan jirtay weligeedba oo wax cusub oo annagu aan sameynayno ma aha markaas yaa waxa ay timid tayadii ciidanka waqti badan yaan u baahanahay oo waqti yaa loo baahan yahay marka ciidan la dhisaayo oo ciidanka idin sheegayo oo 60kii la bilaabay ilaa markii ugu dambeysay ee dawladdu furaysay oo uu gaaray 100 marna wadaniyada xoog badneed patriotismka xoog badnaa marna qabiilka xoog badnaa markii qabiilku xoog batayna de ciidanka tayadiisii waa xumaatay oo ciidanku wuxuu aaday qabiil marka tababar inaan siino ciidanka leh tayo leh si meeshaas ay u soo baxaan ciidan tayo wanaagsan tan ugu muhiimsan waxay ahayd xakamaynta hubka sidaad ogtihiin waa meesha ay ka imaanayso maamulka oo aan horey kugu sheegay ciidanku waa inuu qadiyad aaminsan yahay oo difaacayo oo wadaniyada xamaasadeeda ay siinayso oo dalka waa inuu ciidanku midaysan yahay ta saddexaadna waa maamulka meeshaas way meesha ay ka imaanayso xakamaynta in maamul wanaagsan uu hayo hubka iyo rasaasta dalku leeyahay si aysan u gelin gacanta cadowga ama si aysan u gelin gacanta shacabka aysan u gelin taasna runtii waxaan u xakameynay si aan caadi ahayn oo alxamdulillah intii annagu aan nimid wixii aan aruurinay sidooday noogu yaalaan awaamiirtana ciidanka taliyaha ugu horeeyo iyo taliyaashii ka horreeyey iyo dadka haya oo maxaan ku raacdaa haya maxaa la yidhahdaa hubka haya iyaguna ay xakameeyeen oo aysan marnaba ku takrifalin waxa dadka ka dhexeeya ciidanka ka dhexeeya waxaa hadda uu ka hadlay taliyaha inaan u gudubnay amisom aan ka gudubnay oo aan u gudubnay admis aan u gudubnay aan ku jirnay muddo waxa la yidhahdo Somali transition plan oo aan qorsheynaynay sida aan ciidankeena aan u dhisi lahayn annagoo dagaal ku jirna inkastoo aysan sahal ahayn ciidanka dhismihiisana in la wado dagaalna lagu jiro aysan sahal ahayn haddana waxaan ka shaqeynay inaan qorsheyno sidii aan uga bixi lahayn waxa la yidhahdo chapter 7 oo annagu aan isku filnaan lahayn macnaheeduna tahay walaalaheen African Union oo noo soo gurmaday inaan u mahad celinno waxay noo daadiyeen dhiig badan sacrifice badan iyo noo sameeyeen waa u dhaawacmeen inay difaacaan qarannimadeenna iyo dawladnimadeenna aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin taariikhdaana qoraysa laakiin weligood ma joogi karaan meesha waa inay lahaato waqtigaas weeye waxa marka aan hadda ka shaqeynay oo aan dib u cusboonaysiinay mandatekoodii oo ah annaga 2024 hadduu ilaah yiraahdo dawladda Soomaaliyeed ay iyadu hanato amnigeeda ciidankeedana iyadu ay u gacan
taasna waxayna siinaysaa iyada naftigeeda cunaqabateenka aan ku jirno oo muddo 30 sano ah lagu hayo cunaqabateen xaqiiqatan marar badan ayaan UN-ka aan aad uga doodnay aan uga hadalnay in laga qaado cunaqabateenta maxaa yeelay haddee cadowga aan la dagaalamayno oo al-qaacidada ah cunaqabateen ma saarna dalkeena wuxuu leeyahay 3,300 oo dhererkiisu yahay xeeb yuu leeyahay meeshii rabaan wax kala soo degi karaan annaga se waxaana saaran gacmaha naga xiran oo ma awoodno xitaa haddii aan dhaqaale helno in aan soo iibsanno hubkaan u baahannahay si aan cadowga uga gacan sarreyno waxaana saaran cunaqabateen oo hubabka qaar oo weliba kuwa culus oo loo baahan yahay inaan uga adkaano fududeyn karta ama dadejin karta inaan ka adkaano shabaabka ay naga saareen cunaqabateen meeshaas markaan joogno dalkeenu wuxuu noqonayaa dal normal ah marka dad badan waxaa laga yaabaa hadda inay u arkaan dalkeenu inuu yahay dal normal ah maaha dal normal ah waxaad gaaraysaa markii adigu gacan buuxda aad sovereignty-ga ku difaacan karto oo ciidankaaga aad leedahay oo aad xuquuqdiisa adigu aad siinayso oo qalabkiisa adigu aad u iibinayso oo shacabkaaguna uu ku taageersan yahay ugu dambeyn waxaan rabaa tacsiin aan u diro faamilada qoysaska iyo ciidamada qalabka sida iyo anagoo dhanba dadkii halyeeyada ahaa geesiinta ahaa oo nooga geeriyooday oo nooga shahiiday dagaaladii aan kula jirnay xagjirka argagixisada al-qaacidada aan kula jirnay u dhintay naftooda u bixiyay إلهي وحبرنا حريستي جنديسي إنه إلهي سيو ما إلو بدونه ما قعدنا ونحن قرب دونا قلبي كليا ماهد بل ذهب يودل كان تاريخ سوق قرب دونا دو إلهي رادو كوا وداوع مينا وحن ليا هاي تلكينا سيده هاي يدو داوع عنتين وواجبات كنا أها إلهي يدودك كعينا الحمد لله دولت كستا أو تمادنا إني إذا سيسو دريال كينا iyo noloshiina iyo caafimaadkiina walaalayaal waxaan kala dooranaynaa haddaan rabno inaan dhisno ciidan xoog leh oo ilaan ciidanka shakhsi ma laha ciidanka siyaasad ma aha ciidanka dalka iskale qaranka iskale marka la arko ciidankan sida uu yahay iyo juhdiga la geliyay macnaheedu ma aha qof inuu leeyahay ciidankan waxa iskale ummadda Soomaaliyeed waxana loo carbiyay oo loo diyaariyay oo loo tayeeyay oo loo tababaray inay difaacaan qarankooda difaacaan haddii aan doonayna marka taariikhdeennii hore inaan milicsano oo taliyaashii hore qaar ay halkan ka joogaan markhaati u ah waxaan sheegayo waxaa loo baahan yahay in ciidankeenna mabaadi'diisa ciidankeenna principalkiisa ciidankeenna afkaartiisu inay tahay wadaniyad dowladeenna afkaarteedu inay tahay wadaniyad anu waxaan idin sheegaa waa kala doortay waqti horaan kala doortay qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankaan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynayaa patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynayaa qofkii aqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meelna iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragnay ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay
burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoogood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay waddaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 40 sano 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn way waxa qabiilku leeyahay marka aan wada qaadan وماسنتين أنا هذا الكسو وأنا دا بامبيدا يقصو قلنا وماسنتين هذا الكي حقوق بيني هاي ولا ليال هدان دونين هرمر هدان دونين إن الله ترتنا عالمك هدان دونين شعب عافمات قبا أن قادنو مبادئ وطنية دا وباتريتيزم كا أن كتجنو وح الله ويجيب نودي جاية وجوه رأي قبيلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudahaan inta ayaan ku soo idlaynaynaa xafladayada qiimaha badnayd marti sharafta qiimaha badan waxaanu ka codsanaynaa inta madaxweynaha wafdigiisu ka dhaqaaqayo in ay inoo fariistaan si sharaf leh barakoolkana ay lana looraan